saaka ay maalin axada tahay waxaan kulanay hay'adda shaqaalaha gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo tiimkiisa annagoo ah guddida joogtada ee golaha wakiilada waxaan ka wada hadalnay in shaqadan qaranka u hayno labada dhinacba si fiicanna waa iskugu afgaran talooyinna waa kala qaadanay wixii soo jeedina iyo talooyinna isku isweydaarsanayna waan dhamaynay hawshaana waxaan u malaynayaa si fiican baan u baahnay labadayda dhinacba runtii sida gudoomiyuhu sheegay maanta waxaanu shir balaaran yeelanay guddida joogtada golaha wakiilada iyagoo gudinaya waajibaadkooda dastuuriga waxay xog waraysi nagala yeesheen shaqada aanu qaranka u hayno hay'adda shaqaalaha waa hay'ad dastuuriya oo qaranka u qaabilsan shaqada iyo shaqaalaysiinta iyo dalacsiinta iyo korjoogtaynta shaqaalaha qaranka dabagalkooda iyo xaqsiintooda iyo hubintoodaba waxaan uga warramanay qorshayaasha hay'adda shaqaalaha dawladda ee sanadkan qorshaysan sidoo kale waxaan uga warranay waxyaabihii noo qabsoomay sanadkii hore iyo sidoo kale guulaha ay gaadhay hay'adda shaqaalaha dawladdu runtii dadku badankoodu waxay moodaanuun saxaafadduna hay'adda shaqaaluhu inay keliya ka shaqayso shaqaale laakiin mandatekeegu intaa uu ka ballaaran yahay waa hay'ad runtii dastuurka lagu xusay waa hay'ad ku shaqaysa xeerka shaqaalaha dawladda xeerkaasi oo si faahfaahsan u qeexaya waajibaadka iyo mas'uuliyadda hay'adda shaqaalaha gudoomiyaha guddida joogtada iyo dhammaan xubnaha kale ee xildhibaanada waxaan uga mahadnaqaynaa sida runtii qiimaha leh ee su'aalaha ay noo weydiiyeen waana iska sunnaha dawladnimada in hay'adaha dawligii ay wada shaqeeyaan ay wada xisaabtamaan waxaa sidoo kale aan uga mahadnaqayaa guddidii runtii dadaalada ka geysanaysay hay'adda shaqaalaha sanooyinkan ugu dambeeyey reformka dib u habayntan aanu wadno runtii qayb ka ahaa National Electronics waa hoyga agabka elektrooniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda